anigoo maraya sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda waxaan ka soo jeeday famil aad iyo aad u duruufaysan. si adag ay iiga bixin jireen lacagtan wax ku barto. bil walba xilliga imtixaanka markii la gaaro imtixaanka ayaa qiil iga geli jiray sababta oo ah duruufta reerkeena haysata iyo anigoo lacagtii imtixaanka xilli hore aan bixin. noloshaas iyo duruuftaas anigoo wax ku baranaya ayaa waxaa dhacday in sanadkii ugu dambeeyay ee aan rajada lahaa igu soo noqdeen maadooyinkaasoo la-aantood aanan shahaado qaadan karin. xaaladeyda aad iyo aad ayay isku bedeshay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena, soo dhawaada walaalayaal. waxaan ka hadli doonaa maanta qiso cajiib ah taasoo ka mid ah qisooyinka ama dhacdooyinka laga arkay istikfaarta. haddii aad saakayso nabad kacday dheh alxamdulilaah, ilaahu noo ziyaadi nimcooyinkaadna siisay. intaan haysanina sii, intii walaaloo xanuunsan alle subxaana watacaala waxaan oga baryaynaa inuu caafimaad taam siiyo. intii murugaysan, intii kurbaysanna ilaahay subxaanahu watacaala kurbadaha ka qaado. intaa kadib walaalaha sharafta leh, sidii caadada inuu ahaydba aan isxasuusino maanta inaan ku salina xabiibkeena Muxamed. allahumma salli wasallim calaa nabiyina Muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. qisadeena maanta waxay ka mid tahay qisooyinka ama dhacdooyinka laga arkay istikfaarta. waxayna ku saabsan tahay gabar. waxayna ku bilaabanaysaa qisada. gabadhaani waxay ahayd gabar kasoo jeeda famil aad iyo aad u tabaryar ama u danyar dhanka dhaqaalaha. familkan waxay ahaayeen famil sabool ah, laakiin waxaa muhiim u ahaa oo ay dhabarka u riteen oo wado walba ay u mareen ilmahooda inay wax baraan. dadka qaar ayagoo lacag leh ayaa waxaa laga yaabaa waxbarashada inay muhiim u ahayn, halka dadka qaarna duruuf kasta ay ku jiraan waxay ogyihiin qiimaha ay leedahay waxbarashada. waxay ku dadaalayaan intii ay wax cuni lahaayeen, waxay calooshooda gelin lahaayeen inay ka jaraan oo ilmahooda wax ku baraan. waayo qofka markuu wax bartay biri ka maalin asaga ayaa isbixin kara oo noloshiisa maamulan kara. laakiin haddii la dhaho duruuf ayaan ku jirnaa, nolosha ayaa nagu adag, wixii la helo waa la cunayaa, waxbarashadiina waa iska dhaafaynaa, taasi waxay sababaysaa in familkaas weligiis ay noloshooda isbedelin. waayo waxbarashada aad ayay muhiim u tahay. marka familkan waxay ahaayeen dadka aaminsan in waxbarashada ay muhiim tahay. inta wax la cuni lahaay hala qado, waxa la barto oo ilmaha nafta loo xiro. gabadhan familkaas ayay kasoo jeeday. waalidkeed waxay awoodaan iyo waxay awoodin iyo waxay u soo deensadaanba wax way ku bareen. jaamacadii ayaa la gaaray, iskuulkii way soo dhamaysay. jaamacadii waliba waxaa la gaaray xilliyadii u dambeeyay, sanadkii u dambeeyay ee jaamacadda ayaa la gaaray. gabadhan jaamacadda markii ay dhiganaysay, xilli walbo imtixaan la galayay, waqti walbo imtixaan la galayay, buuq ayaa jiri jiray. sababta oo ah sidaan ognahay imtixaanaadka lacagta waa hormaris, oo qofkii aan lacagta dhimin imtixaankiisa wuxuu galayaa qiil. gabadhani waxay ka mid ahayd dadka mar walba lagu dhagan yahay duruuftan halkaas dhigtay. mar walba waxay dhihi jirtay biri ayaan keenayaa, biri dambe ayaa keenayaa. ugu dambeyn waa ay soo mooday waqtiyadii adkaa. waxaa la gaaray sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda. sanadkan ugu dambeeyay ee jaamacadda ayaa waxaa dhacday gabadhan in si uun xanuunsatay oo culays badan ee dareentay. haddaad ku nooshahay duruuf adag, sidaad u fikirayso marka dambe aad ayay ku saameynaysaa in gabadhan maadooyin ay kusoo noqdeen oo maadooyin ay ku dhaceen. maadooyinkan ay ku dhacday gabadha la-aantood shahaado ma qaadan karto, shaqana ma heli karto, bannaan lama mari karto. waa gabadhii reerkeeda ay kusoo tiiriy tacabeeleen oo duruufta adag ay wax kusoo bareen ayaa sanadkii ugu dambeeyay jaamacadda maadooyin kusoo noqdeen oo maadooyin ku dhacday. aad ayay u murugootay. sidoo kale familkeeda walwal fara badan ayay dareemeen. qofka markii uu maadooyin ku dhaco, maadooyinkaas markii uu iska magaayay ama uu gudayo ama imtixaankooda uu dib u galayo, qarash ayaa laga rabaa. familkan waxaa ku adkeed qarashka ay hal mar bixinayeen. wayna ku culus tahay laba maado hal maado inay laba qarash ka dhiibaan. waayo maadooyinkan qarashkoodii hore ayaa loo dhiibay, gabadhan ayaa ku dhacday oo kusoo noqotay. waxay sameeyaan ayay garan waayeen.
jaamacadii waxaa loo qabtay xilli waxaa la yiri qof walba imtixaanka ku dhacay ama lagu leeyahay ama maqnaa maalinta imtixaanka waa maalintaas inuu imaadaa si uga qayb galo imtixaanka. gabadhaas ma awoodo waayo lacagtaas laga rabo familkeeda ma awoodaan. ilaahay khayr hasiiye waxaa jiray macallimiinta ka mid ah jaamacadda dhigo oo ogaay gabadhan xaaladeeda iyo duruufteeda iyo bil walba in lagu qabsan jiray lacagta imtixaanku galayso. gabadhan aad ay uga walwalsanaa. macallimiinta isku mid ma aha, isku naxariisna ma aha, mana sinna dadka bini'aadanimadooda. wuxuu ogaa gabadhan gabar dadaal badan inay tahay, inay kasoo jeedo reer danyar, ayna awoodin maadooyinka inay iska bixiyaan. aad ayuu u murugooday. wuxuu dareemay sida gabadhiisa oo kale hadduu duruuftaas kusoo korin lahaa oo sanadkii ugu dambeeyey wax walba waa qadare, intay qadar ku dhacdo imtixaanka ku dhacdo kadibna sidaas gabadhii waxbarashada uga harto oo wixii sanado reerkeeda iyo kusoo dabarayeen halkaas ku baaba'o. macalinkaas wuxuu go'aansaday gabadhaas inuu xaalkeeda xalliyo. gabadhii ayuu la xiriiray, wuxuuna yiri maalin heblaayo ayaa la galaya imtixaanka, soo kama warhaysid. waxay tiri haa. wuxuu weydiiyey qarashaadkii jaamacadda inay iska dhibtay. waxay tiri maya. waxayna u raacisay ma awooday inaan iska bixiyo, waxaan ka baqayaa imtixaankaas inaan ka baaqdo. macalinka wuxuu yiri aniga ayaa wax walba qarasho ka dhiibayo, sababtaan kuu soo wacayna waxay tahay waxaan ahaa qof og duruuftaada, waxaan ahaa qof og dadaalkaada, sidoo kale waxaan ahaa qof og xilli walba imtixaanka la galayo in banaanka lagu istaajin jiray laguna dhihi jiray maxaad u dhiibi weysay lacagta. wuxuu yiri wixii lacag loo baahan yahay ii soo qiimee, aniga ayaa kuu soo dirayo, maantaba iska soo shub. gabadhan subxaan allah ma aysan ka filaynin. ayada lama hadlin, ayada lama xiriirin, ayada ma raadsanin. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u soo qasbay. maxay samaysay marka gabadhan maalintii ay imtixaanka ku dhacday, maadaama aysan lahayn awood, maadaama aysan haysanin qarash, ay ogtahay waalidkii duruufta ay kusoo koriyeen waxna kusoo bareen, waxay bilowday istighfaar ayay afkeeda ka qaadi jirin. maalin walbo 6,000 oo mar ayay waxay dhihi jirtay astaghfirullah wa atuubu ilay. laga bilaabo maalinta imtixaanka ay ku dhacday oo ay murugootay ilaa iyo maantadan intaas ayay akhrinaysay astaghfirullah wa atuubu ilay. waxay go'aansatay qof inay weydiisanin wax, qof inay ku oynin, qof inaysan tuugsanin, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala oo keliya arinteeda u sheegto. aad ayay u istighfaarsan jirtay gabadhan. ugu dambeyn macalinkaas ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u soo qasbay asoo raali ah. wuxuu yiri intii qarash kugu bixaysa ii sheeg. waa ay u sheegtay. maantaba iska soo bixi ayuu yiri si aadan imtixaanka uga habsaamin ama aad uga baaqanin. gabadhii ayadoo faraxsan ayay macalinka u mahad celisay, ilaahay subxaanahu watacaala u mahad celisay, waalidkeedna aad ayay uga farxeen. sidaas ayay lacagta ku shubtay, imtixaankiina ku gashay, ugu dambeynna ay ku qaadatay shahaadadii. ilaahay subxaanahu watacaala gabadhan wuxuu uu ku guuleeyay markii ay murugada dareentay, markii ay xaaladda ku adkeed in ay istighfaarta akhriso ayuu ilaahay subxaanahu watacaala haleeshiiyey. sidaas ayuuna nolosheedii ilaahay ku bedelay oo ugu fududay imtixaankii. waa ay ku baastay shahaadadeennii ay ku qaadatay. ilaahay qofkii isku xiro, qofkii u toobad keeno, qofkii istighfaar la imaado, wax walba iyo wuxuu u baahan yahay ayuu alle subxaanahu watacaala siinayaa. waayo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa inoo sheegay in istighfaarta ay tahay wax aad u weyn, in lagu helo xoolo, in lagu helo awlaad, iyo qof walba meesha uu ka baahan yahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala baahiyihiisa ka daboolayo. waxay ahayd qiso cajiib ah oo ku dhacday gabar walaasheen. alxamdulilah ilaahay ayaa kurbada ka qaaday. qof walba oo muslimna ilaahay subxaanahu watacaala kurbada waa uu ka qaadayaa haddii uu baryo, haddii uu istighfaar la imaado. waa mahadsantii walaalaha sharafta leh. muuqaalka like saara si ay u gaarto walaalo badan. qaybta hoose commentigan aan ku xusno xabiibkeena maxamed. wassalaamu calaykum.